xafladan oo ka dhacda hoteelka Rays ee magaalada Boorama waxaa ka soo qayb galay inta badan culumaa u diinka waaweyn ee gobolkan, maamulka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaana xafladan lagu shaacinayay dallad ay yeesheen madaarista xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo barashada diinta Islaamka ee ka howlgala gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorama. waxaana xafladan ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha dalladan Sheekh Maxamed Faarax, waxa uu faahfaahiyay waxyaabaha dhaliyay inay dhisaan dalladan isla markaana ay ku midoobaan madaarista xifdinta Qur'aanka iyo barashada diinta Islaamka ee Boorama ku yaala. وشرعيات قرآنية تربوية اجتماعية وشرعيات كشرعية كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب إلهي كشرعية سيدو كتاب إلهي كل نقلها وأمضا هيعز يشرف كل إلهي شرعيات أسباب هذا كتير الرفاطة وحكياني inaan samayno jamciyada iyo kulanka baahida gobolkeena awda looga baahan yahay jamciyad tan oo kala ah oo quraanka Ilaahay u shaqeysa oo maraakista midaysa inaan la helo inaan sharxino juhuudi macallimiinta dadaalkooda kala duwan oo markaa ay ku kacayeen ee ummadda bulshadooda ay u soo jeedinayeen barayeen habeen iyo maalin u taagnaayeen oo macallin kasta dhinaciisa uu ka dadaalayay inaan juhudi meelis ugu keeno midayno waayo midho badan buu macallin kasta soo saarayay sanadkii fara badan arday badan buu macallin ka soo haya intaasoo macallimiin baa dhigta maraakista quraan maraakista taxfiidka quraanka kariimka markaa maraakistii waxaan isku keenay 23 markas oo waaweyn oo maxaan lahaay waxa weeyaan kuwii taxfiidka ahaa oo arday aad u fara badan ku jira waxaan markaa ku guulaysanay alxamdulilah inaan midayno tadiinkoogii midayno maxaan lahaay waxa weeye wax kastaba nidaam kama maarmo diinta Ilaahay inaan lagu midoobo sidoo kale culumaa u diinka waaweyn ee gobolkan oo iyaguna xafladan ka qayb galay ayaa waxay ugu hambalyeeyeen maamulada madaarista kala duwan ee Boorama ku yaala dalladan ay ku midoobeen maanta, waxayna sheegeen inay dalladan noqon doonto mid wax weyn ku soo kordhin doonta madaarista xifdinta Qur'aanka ee Boorama ku yaala. isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolkan Sheekh Xaamud Axmed Nadiif oo gabagabadii xafladan hadalka ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin dalladan mideynaysa madaarista xifdinta Qur'aanka ee Boorama ku yaala. waxa uu hoosta ka xariiqay in wasaaraddu dalladan ka taageeri doonto howlahooda shaqo. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.